safiirka Soomaaliland u fadhiyo wadanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed ayaa ka qayb galay shirka baarlamaanada Afrika oo ka dhacay wadanka Djibouti. Sidoo kale waxaa lagu soo casuumay qaar ka mid ah safiirada u fadhiya dalalka shisheeye wadanka Djibouti. Shirkani baarlamaanka wadamada Afrika ee maanta ka qabsoomay dalka Djibouti ayaa waxa lagaga hadlay isbedelka cimilada iyo iskaashiga Afrika ee dhinaca baarlamaanka. Waxa ugu horeyntii shirkaasi furay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti. Shirkani ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka wadanka Djibouti, bulshada rayidka ah, hay'adaha samafalka ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti fadhigoodu yahay. Safiirka Soomaaliland u fadhiya wadanka Djibouti ayaa si heer sare ah loogu casuumaa shirarka ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Djibouti isagoo oo la meeqaama safiirada dalalka shisheeye u jooga dalka Djibouti. Waa safiirka Soomaaliland u fadhiya wadanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed. Taana waxa uu hormuuda xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya labada dal Soomaaliland iyo Djibouti. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Djibouti.